Ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid ila wareejin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xilka qaadis ku sameeyay taliyaha booliska Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar balse uu diiday madaxweyne Farmaajo arrinta ayaa waxaa ka dhashay muran xoog leh oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo sida ay noo sheegeen ila wareejyada Generaal Xijaar ayaa laga duubay muuqaal xilli uu war-saxaafadeed jeedinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish isagoo ku amray gudoomiye Cumar Filish inaanu sheegi karin tirada dhimashada iyo dhaawaca balse gudoomiye Cumar Filish uu si farsamaysan u sheegay tirada dhaawaca isla markaana uu sheegay in tirada dhimashada ay tahay mid aad u badan inkastoo uusan sheegin tiro Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha booliska bishii Agoost ee sanadkan waxaana uu ka hor ka mid ahaa howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Carabiya Generaal Xijaar ayaa sidoo kale saaxiib dhow la ah Fahad Yaasiin lama oga sida ay ku dhaqan gali doonto xilka qaadista uu sameeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maadaama Xijaar uu garab buuxa ka haysto Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo oo ah labada nin haatan dalka uga awooda badan dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nafwaay qaraxii bahalnimada ahaa ee argagixisadu la beegsadeen Ex Control Afgooye madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waa maalin murugo badan oo muujinaysa sida argagixisada ay bartilmaameed uga dhigteen shacabkeena waxaan tiiraayada la wadaagayaa qoysaska dadkii naga shahiiday waxaan alle ugu rajaynayaa inuu noo bogsiyo dhaawaca madaxweynaha ayaa tilmaamay in goobta ay la beegsadeen argagixisada qaraxan bahalnimada ah ay muujinayso ficilada gumaadka ah oo ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo weliba sida ay u baneysteen dhiigga muwaadin kasta iyadoo aan kala sooc lahayn argagixisadu waxay saaka beegsatay arday jaamacadeed oo tacliin u kala hayay hooyooyin iyo aabbayaal u xoogsanaya carruurtooda iyo dad aan waxba galabsan oo ku mashquulsanaa howl maalmeedkooda cadowgan u shaqeeya fulinta hagardaamooyinka argagixisada caalamiga ah weligood hal shay oo horumar ah dalkeena kuma soo kordhin jid ma dhisin cisbitaallo ma hirgelin xarumo waxbarasheed ma samaynin shaqadooda waa burburin iyo xasuuq shacabka Soomaaliyeed waa ka dherigsan yihiin dhagartooda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray xukuumadda in awooddeeda oo idil isugu geyso sidii gurmad caafimaad oo degdeg ah loogu fidin lahaa dhaawacyada iyo qoysaska dhibaataysan isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeedna in ay u gurmadaan walaalahooda ay dhibaateeyeen cadowga dhanka kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyagaas Cabdi Xasan Xijaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho taliyaha ayaa sheegay inay xaqiijiyeen dhimashada 79 ruux halka dhaawacyadana uu ku sheegay in ka badan 100 qof isagoo u tacsiyay ehelada dadkii dhintay kuwa dhaawacmayna u rajeeyay inuu alla caafimaad siiyo sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in saakii markii uu dhacay qaraxaasi ay durba isla markii goobta gaareen halkaas oo uu sheegay in uu muddo kadib uga daba tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish kaas oo warbaahinta la hadlay xilli uu garab taagnaa taliyaha booliska gudoomiye Cumar Filish oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ayaa taliye Xijaar oo garab taagnaa waxa uu ka dalbaday in uusan sheegin tirada dhimashada ka dhalatay qaraxaasi taas oo sababtay in gudoomiye Filish uu ku adkaysto sheegidda in ka badan 90 qof oo ku dhaawacmay qaraxa taliyaha oo markii uu sidaasi faray gudoomiyaha ka soo muuqday warbaahinta sidoo kalena codkiisa la maqlayay ayaa sheegay in arrinkaasi uu kala jeeday oo kaliya in la hubiyo khasaaraha ka dhashay qaraxa si buu yiri shacabka loogu gudbiyo warbixin dhameystiran xildhibaanada iyo shacabka qaar ayaa ku eedeeyay dawladda inay qarinayso khasaaraha shacabka si uu u dawoosho fashilka dhanka amniga dhanka kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Daabid Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay qaraxii saaka ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho Daabid Cabdi ayaa sheegay inuu murugada la qaybsanayo ehelada dadkii shacabka ahaa ee maanta ku waxyeeloobay qaraxii Ex Control Afgooye isagoo tacsi u diray dadkii halkaasi ku geeriyooday halka kuwa dhaawacmeen uu alla caafimaad ugu bariyay isagoo la hadlayay warbaahinta dalsan ayuu Daabid Cabdi Maxamed shacabka iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda ugu baaqay in ay gurmad degdeg ah u sameeyaan dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi isla markaana ay dhiig u shubaan dadka shacabka ah Daabid ayaa tilmaamay in qorshihii amniga ee dawladda Soomaaliya ay u muuqatay inaan loo fulin sidii loogu talagalay Daabid ayaa ku baaqay in si degdeg ah wax loogu bedelo qorshaha amniga ee dawladda Soomaaliya isla markaasna la fiiriyo qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa waxaana ku geeriyooday 79 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 125 qof waxaana ku jira arday dhiganaysa jaamacadda Banaadir madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa diiday in uu mar kale la kulmo hogaamiyaasha mucaaradka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed markii ugu horeysay madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaashii hore ee dawladda federaalka ayaa ka kulmay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay waxaana sida balanta ahayd lagu heshiiyay in mar kale la kulmo si loo sii ambaqaado howlihii harsanaa sida wararka ay sheegayaan kulanka waxaa dalbaday madaxweyne Farmaajo maalmo kadib markii uu Sheekh Shariif Sheekh Axmed ku hanjabay in uu dawladda Farmaajo awood ugu saari doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warar laga helay fila Soomaaliya ayaa sheegaya
in ay isa soo hor fariisteen Farmaajo, Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed. Wadahadallada ayaa salka ku hayay sidii la isugu meel dhigi lahaa waqtiga ay dhacayaan doorashooyinka dowladda. Xisbiyada mucaaradka ah ee madaxweynayaashii hore ay horboodayaan ayaa ka walaacsan in Farmaajo iyo Khayre ay muddo kororsi sameeyaan, waxaana la filayaa in arrinta doorashooyinka lagu caddeeyo kulanka dhacaya. Bayaan ka soo baxay dhawaan madasha xisbiyada qaran ayay ku sheegeen in ay ka baxeen heshiiskii ay la galeen madaxtooyada kadib markii uu madaxweyne Farmaajo jabiyey waxyaabihii ay ku heshiiyeen. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay madal su'aalo lagu weydiinaya ayaa ka hadlay halka uu ku dambeeyay khilaafkii dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Madaxweyne Dani oo la weydiiyey safar la filayay in uu ku tago magaalada Muqdisho oo ku saabsanaa xalinta khilaafkaasi ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkaasi, isla markaana dowladda federaalka ay aqoonsatay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo. Wuxuu tusaale u soo qaatay shirkii looga hadlayay arrimaha maaliyadda oo ay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ku qabatay magaalada Kismaayo, isla markaana ay ka qayb galeen wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dalka ka jira. Wixii aan garwadeenka ka noqon lahayn waa ay iska dhammaatay. Dowladda federaalka waa tii ay lahayd ma aqoonsanin, waa tii maalin dhoweed wasiir beela tagay waa aqoonsadeen. Marka hadda dhib kama taagna taasi, wixii dhiman ayaga ayaa dhammaysan doona, annaga doorkaas ilaah ayaa naga furtay ayuu yidhi Dani. Eelawareede ayaa shabakadda Sirta Media u sheegay in shirkii Kismaayo uu ahaa mid ay ku qasbaneed dowladda federaalka ee aanay micnaheedu ahayn aqoonsi Axmed Madoobe. Soomaaliya ayaa rajaynaysa in bisha Febraayo ee sanadda 2020 laga cafiyo deymaha lagu leeyahay, waxaana si taasi u dhacda qasab ah in arrimaha maaliyadda ay ka wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Dhanka kale, Xasan Cali Khayre ayaa mar kale tagaya magaalada Dhuusamareeb. Haddaba ujeedka Xasan Cali Khayre waa maxay? Dadka aadka ula socda arrimaha Galmudug waxay leeyihiin waxa uu halkaasi u tagayaa in uu sameeyo faragelino badan oo uu isku dayayo in la abuuro jawi Galmudug u habeynaya sida nabad iyo nolol ay u rabto, iyadoo lugta lagu dhufanayo rabitaanka shacbiga reer Galmudug. Qoorqoor oo ay boorso ku wada dowladda nabad iyo nolol ayaa la rabaa inuu ku soo baxo madaxweynaha maamulka Galmudug si ay u noqoto mid la siman Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ay labadaba maqaar saar ka yihiin madaxweynayaal. Khayre iyo kooxda la socota ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaan madaxdooda Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Wararka ayaa sheegaya in looga hadli doono arrimo ay ka mid yihiin doorashada Galmudug oo la qorsheenayo in gacanta lagu rumiyo dhawaan. Dhagarqabe isagaa is oge, ammaanka garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada, iyadoo aan wax macno ah loo yeelin ciidankii ahlu sunna ee magaaladaasi si weyn u difaacay muddo sanado ah. Booqashada Khayre ku tagay Dhuusamareeb waxay ku soo aadaysaa iyadoo khilaaf badani uu ka taagan yahay aqbalaadda 20kii xildhibaan ee dowladda u qoondaysay ururka ahlu sunna oo ay ahayd inay iyadu qoondaysato. Waxaa jira weli cabasho ay abuurayso dowladda nabad iyo nolol, taasoo lagu muujinaya in qaar ka mid ah beelaha Galmudug ay cabanayaan, taasoo ku aadan qaabka ay ahlu sunna u soo xushay xubnihii laga siiyay baarlamaanka Galmudug. Sidoo kale, inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb, Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ku dadaali doonaa in loo habeeyo sida nabad iyo nolol ay u rabto habkay u socoto soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug iyo arrimaha doorashada maamulkaasi. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.